السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا مركلا يو عشرة يعني أنا كبرني يعني لغة التركية. marka hore casharka intaan gelin haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe taabo si aad ula socoto cashar walba aan soo dhigo sidoo kale gambaleelaha taabo si aad ula socoto ama aad u hesho fariin kuu sheegaysa in aan soo geliyo video cusub. Okay, aan bilowna casharadani. maanta waxaan qaadanaynaa waxa loo yaqaano كلمة لير oo macnaheedu ay tahay erayo. كلمة لير waa macnaheedu waa erayo. Okay, erayga ugu horeeya wuxuu noqonayaa gunaydin oo macnaheedu tahay subax wanaagsan. gunaydin subax wanaagsan. Okay, tusaale ahaan subaxii markaa qof aragto waxay dhahaan ayaga gunaydin. salaamun calaykum way dhahaan. gunaydin subax wanaagsan way dhahaan. Okay, erayga labaad wuxuu yahay ii gunlaar oo macnaheedu tahay maalin wanaagsan. waa duhurada iyo wixii ka dambeeyo. hal mar haddii 6 saac la gaaro wixii ka dambeeyo waxaad leedahay ii gunlaar maalin wanaagsan. Okay, gunaydin oo subax wanaagsan ah, ii gunlaar oo ah maalin wanaagsan. Okay, waxaa sii xiga ii akshamlaar oo macnaheedu tahay fiidnimo wanaagsan. ii akshamlaar fiidnimo wanaagsan. Okay, waxaa xiga ii gajalaar macnaheedu tahay habeen wanaagsan. ii gajalaar habeen wanaagsan. Okay, erayadaas waxay ahaayeen erayada maalin dhiili loo isticmaalo. tusaale ahaan qofka subaxi markaa aragtid oo kale qofka haddii uu luqadda turkiga yaqaan ama luqad u dhashay waddanka badanaa waxay dhahaan erayadan ay adeegsadaan. gunaydin oo maalin subax wanaagsan ah, ii gunlaar oo ah maalin wanaagsan, ii akshamlaar oo ah fiidnimo wanaagsan, ii gajalaar oo ah habeen wanaagsan ama habeennimo wanaagsan saa doonto dheh. Okay, haddana waxaan gelaynaa erayo kale oo wata sawiro wata. Okay, erayga ugu horeeya wuxuu yahay otuur. midkan af Soomaali in lagu aqoon uma baahna sababtoo ah sawirkii ayaaba ku agyaala. saas ayaaba ku sii fudud. qaababka luqadda lagu bartana qaababka ugu fiican waxay tahay erayga iyo sawirkiisa in la is ag dhigo. otuur hadda macnaheedu waxay tahay fadhi. otuur ninka fadhi waa ujeedaa. Okay, erayga kale wuxuu yahay kalk waa istaagid. Okay, erayga kale wuxuu yahay gaal ay u qormataa laakiin gaal aa loogu dhawaaqaa. gaal waa imaansho. ninkan hadda waa taagan yahay laakiin inuu soo socdo waa la dareemayaa. tallaabo ayuu hore usoo qaaday. midkan kale waxay ku kala duwan yihiin. gaal waa imaansho. Okay, waxaa iga konush waa hadal. Okay, waxaa iga ach waa kala furid. ninkan buugga ayuu kala furayaa hadda ujeedaa. ach waa kala furid. Okay, waxaa iga oku oo macnaheedu tahay aqrin. wax la aqrinayo. qofkan wuxuu aqrinayaa buug. Okay, oku oo macnaheedu tahay aqrin. Okay, waxaa xiga giid waa bixid. qofkan wuu sii socdaa wuu sii baxayaa. giid. Okay, waxaa xiga suus waa aamus. farteeda ayaa afka sare ujeedaa. sawirka sida kaaga muuqata
sus waa aamus. Okay. dinle waa dhegeysi. dinle dhegeysi. dinle waa ujeedaa sawirka dhigta ayuu sidan leeyahay gacantiisa waa dhegeysi. dinle dinle. Okay. waxaa noo xiga weer. weer macnaheedu waxay tahay siismo. weer siismo. qofkan waad ujeedaa qalin ayuu qof kale siinaya u dhiibaya macnaha weer. weer weer siismo ama u dhiibid. Okay. waxaa inoo xiga yaz. yaz oo macnaheedu tahay qorid. right oo kale waa qoritaanka sabuurada ay wax ku qoraysaa sawirka waa ujeedaa. yaz. yaz waa qorid. Okay. waxaa inoo xiga sil. sil. sil waa tirtirid sabuurada marka la tirtirayo oo kale. sil. sil waa tirtirid. sil waa tirtirid. Okay. marka cashiradeena maanta halkaas ayay ku eg yihiin. video waa ku ceshan kartaa waana baraatikeyn kartaa. wax walbana baraatikada ayay ku fududaadaa marka waad ku celcelin kartaa si aad ula qabsato hadhow. insha allah videoga haddii ku cajibiyey like saar siina share gari asxaabtada sii gaarsii. waa mahadsantahay casharkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.